munaasabada xuska sanad guuridii 500aad ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee Jowxo ayaa si diran loogu xusay xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur waxaana munaasabadan ka soo qayb galay taageerayaasha jabhadda mas'uuliyiin qaybaha bulshada ka kooban tahay iyo marjaraf kale waxaana furitaankii munaasabadan sanad guuridii 500aad ee aasaaska jabhadda ayaa waxaa daha furay xogayaha golaha dhexe ee jabhadda Mudane Maxamed Shariif Cumar halkaana wuxuu ka soo jeediyay sooyaalka taariikheed ee jabhaddu ay lahayd baan u faraxsanahay shacbiga gobolka Jarareed gaar ahaan inta maanta ku sugan magaalada madaxda gobolka ee Dhagaxbuur ee u soo diyaar garowday inay ka qayb galaan xafladda jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya loo samaynayo markii ugu horeysay muddo ku dhow 30 sanadood in laga sameeyo magaalada madaxda gobolka Dhagaxbuur waa farxad iyo taariikh aad u qiimo badan wax yar tilmaano xageen ka nimid inaan tilmaano meesha aan joogno inaan tilmaano meesha aan u socono inta iyo wixii aan ku gaarnay inaan taataabno ila quman marka hore dadku waxay aaminsan yihiin oo laf dagaalkii ay ku jirtay 27 sanadood inuu ahaa dagaal ay dooratay oo iyadu go'aan ku gaadhay dareenka waxaan rabnaa dadkanaga inuu ka baxo oo aan laf weligeed dagaal mayna doonin nabadgelyada maanta ay ku halgamayso waa tii ay ku muujisay astaanta qaranka iyadoo ay leedahay ee qaranka iyo qoriga isa saarana waxaana mar walba koreeyay qaranka inta kadib ayaa waxa munaasabadan hadal ka soo jeediyay Cabdiraxmaan Khaliif Xaaf oo ah gudoomiyaha jabhadda ee gobolka Jarar waxyaabo fara badan oo aynaan hore u soo marin baynu soo maray sanadahan hadda la soo dhaafay waxyaabo badan oo aynaan hore u soo marin hadda maantaan joognaa marka waagi bariyo waayala baa la yiri waxaynu soo maray sidoo sheekhu ka sheekeynayay oo ay dhacday inaan la joognaayo inaan nabad lagu jiro oo wixii la doonana lagu hadli karo meeshii la doonana la mari karo iyaduna waa taariikh kale marka laba aayadood wey maanta oo Dhagaxbuur lagu qabanayo maxay ahayd sanad guuradii jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo 35 sano hadda laga joogana iyadana waan taaganahay wariyeed laguma qabanin waxaa kaloo munaasabadan hadallo isugu jira dardaaran iyo dhiirigelin ka soo jeediyay Maxamed Asad Sheekh Badri oo ah xubin ka tirsan golaha dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee marka magaceeda la soo gaabiyay loo yaqaan ONLF marka waxaan rabaa taariikh yar inaan idin la wadaago waxaa jirta xigmad oranaysa history practice human heart oo macnaheedu yahay taariikhdu waxay cusboonaysiisaa qalbiga ama niyadda bini'aadmiga ruux haddii taariikhdiisa ummadeed una aqoonin tiisa halgan haddii una aqoonin dee meel uu socdo ma uu garanayo sidaa daraaddeed waa in aynu baranno taariikhdeenna waa inaynu baranno teenna halgan hadday noqoto iyo teenna ummadeed haddii ay noqotoba halgankan waxaa la aasaasay maanta oo kale sanadkii 1984 maalinta ayada ah ninkayankan hadda idin hortaagan ee odayga ah ee ka midka ah mas-uuliyiinta jabhadda haddaan jiray aad baan wax u garanaynin aad iyo aad baan u yaraa marka halganku waxaad ku garanaysaa muddada dheer ee uu socday baad halkaa ka garanaysaa iyo qiimaha faraha badan ee ku baxay nafta badan ee lagu waayey hantida badan ee lagu waayey waqtiga qaaliga ee lagu waayey marka timeka ama waqtiga iyo nafta iyo hantida intuba waxaa weeyaan aad iyo aad bay u qiimo badan yihiin haddaba qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha munaasabadan aasaaska jabhadda ayaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan sanad guurida 500aad ee jabhaddu ay xusayso dareenkayga maanta lama soo koobi karo waa maalin aad iyo aad farxad u leh waxaan 15 August halgan dad dheer lagu soo jiray iyada oo muhiimadii iyo dantii aan lahayn wali la gaarin laakiin la higsanayo insha Allah aad iyo aad bay farxadeed maanta lama soo koobi karo alxamdulillah goobtan Dhagaxbuur weeyaan waxyaabo fara badan baan uga soo joognay aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweynaa jabhadda waxaan halkaa u taaganahay inaan farxadda la qaybsano oo xusno shacabkii Dhagaxbuur aad isugu soo baxay oo aad u xusay aad loogu faraxsan aan aad ugu faraxsanahay in maanta dhalinyaro iyo odayaal iyo cid walba ay isugu timaado xoreynta maxaan kula jabhadda xoreynta Ogaadeniya maxaan kula on halka lagu wado xuso
ugu dambeyntiina munaasabadan ayaa waxay ku soo dhammaatay jawi wanaagsan is-afgarad iyo weliba nabadgelyo. Axmed Kaabe, SRTV, xarunta gobolka Jarar.